رسولكم مركو شن قضب تلمامي وحيري شبابك قبل هرمك دلني يرنمد هذا كفائدة انت آدن قبوبين ما انت وحبضان او تيرر او كحجينيا ايا بري بخيدونا والدكي با laga yaaba inay ku xajinayaan oo masaariifta iyo nolosha iyo labiska iyo dawada iyo dhaqaalaha iyo dhan walba kula taagan yihiin bari haday ka horeen inay baxaan oo dhintaan ba laga yaaba waxa laga yaaba in walaalay ehel kale ku xoojinayaan adeeray aqribo iyo abtiyaal ku xoojinayaan waxa markay dhamaadaan adnuguna aad hore u korto noloshu aday kugu soo baxsanaysa noloshaas oo dhan qof aan nolosha u diyaar garoobin ma qaabili karayo wadayacmaya wareeraya dad badan oo dawaqsan oo bulshada kamid ah dadka caynkaas oo kala ah dhowr naseexan marka bixinaya naseexada koowaad waxaan kugu naseexaynaya an ta'mal ala sayanati shababik inaad ka shaqayso dhalinyaranimadaada saad u ilaalin lahayd cid kale badaa bal adigu dhalinyaranimadaada inan yaho bal dhalinyaranimadaada saad u ilaalin lahayd oo aad macaasida iyo xumaanta iyo sharka iyo qurunka uga fogaan lahayd ku dadaal qodobka labaad aan ku naseexaynayo an takuna muhafidan tamama almuhafada ala alwajibat walfara'id inaad si dhamaystiran u ilaashato ilaahay wuxuu kugu fardiyo kugu waajibiyay qodobka saddexaad aan ku dardaarmayo an takuna qariban min ahli alilmi wa kibar alulama in aad noqoto mid ku dhow dadka ahlul cilmiga ah iyo culimada alla yaqaanka ah ee diin iyo cilmi alla ka cabsi lagu tuhmayo inaad ku xidhnaato oo tala weydiiso oo aad cilmiga wax ka weydiiso oo aad wixii shaki ka gala weydiiso badbaado weyn baa lagu hubaa marka qodobka afraad aan ku dardaarmayo waxa weeyaan anta an yakuna laka wirdun yawmiy inaad leedahay cibaado wardi ah oo maalin la ah oo habeen la ah quraanka inta maalintii ka akhri salaadaha sunnayaasha tuko waadkaarta subaxiya galabtii ilaasho jamaca masaajidka hadaan inta ku ilaasho habluhu salaadaha aqladaha ku ilaaliyeen sunnayaasha ka dambeeya adkaarta subaxii adkaarta galabtii adkaaraadka la akhriyo dhan ilaasho qof waxaad noqonaysaa xaq ilaahay staff malaa'iga kula socota oo ilaashan oo aanu shaydaanku soo weydaaran kareenin malaa'igta kula socotay ku ilaalinaysa qodobka afraad in ku shanaad in ku dardaarmayo an ta'mala fi ayyamika wa layalik ala tahsinik inaad ku dadaasho maalmahaaga iyo habeenadaada sidii ilaalintaada aad adigu soo ilaalin lahayd cilmiga ifada iyo dhowrsanida nadaafada gobannimada khiyaarnimada akhlaaqda wanaagsan sidaad nolosha qaybaha kala duwan isugu ilaalin lahayd inna likulli diinin khuluqan wa khuluqul islaami alhayaa diin waliba waxay leedahay akhlaaq biya kama dhibcaana islaamku akhlaaqdu leeyimi kuwa ugu qaalisan xishoodka kamida nabiga sallallahu alayhi wasallam maanta xishoodkeenu meeshu maraya waad aragtay in rag iyo dumarba in la xishoodo oo xishoodka lagu dadaalo aad qofku u xishoodo waa ku dardaarmaya qodobka ku dardaarmaya waxa kamida أن تكون حريصا على مرافقة الأخيار ومصاحبة الأخيار إن تكون داشو ضد خيار إن الله صاحبته وآت راعضه مد أدير وحكودير كعبادة بدن كددال بدن كوناكسن كأخلاق يعني لا صاحب قربك وسقاده هذا مد كالي تلا صاحبته قف يسكلوا ما متشرو قف كستول ما يعيد بالوس يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ومحدعي يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ايات عين كاسه لقد اضلني عن ذكري بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا قف كستول ما يعيد بالو مس اسكمل بي النبي يقول عليه صلى الله عليه وسلم المرء مع دينه خليله فلينظر احدكم من يخالف ورو غف ولا بقف الله صاحبه يسكفر النبي صلى الله عليه وسلم هدوها عبن حداد عيال السوق أما بل ودلي أما ملحد أما مدحون لا صاحبته برها عبن دون كفيرس إنا كود داشد كود داشد إنا تحسسناته دائما أن تقف بين يدي ربك ربي قاينا يسولك يا جدود أديكو قاون ما أنت مريات حرنتها كوا شنطتك وجهه كوا أقلك كوياله كما كلا شادد ليده بهي وحادي دونت كليغا نفtaada la tasho oo warayso adigoo gacan iyo mudha oo qaawan oo aan gudnayn oo kaba xidhnayn
إله وين واحد كان أسرتاج وإلهي كوريسان دونه قفكي وعنا الدنيا مركو تشوغي إيه توصنا هذا هو برواقوبيا إنا كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ضدك يجي أهل كما كانوا دحشوغني ضد بقدان وهنوان وبقنشرني ما أنت صومها فمن الله علينا إلهي ما أنت نوقع الذي برواقنا السي ووقانا عذاب السموم سيد عذابك السموم كان نجا إلهي هذه يقول على حصوص نو إلهي نسرتها جدود عن شبابك اللي جويدين دون عفماتك اللي جويدين دون علمك اللي جويدين دون هذا جداد هذا دائما حصوصناته غيرنا نواد حصوصنا نيسا وحبنا وكيدنا وادينا نيسا وقتك أنا واد إلى شندونتا الله سبحانه وتعالى وحن كبريا إنه وقتك عمرك عافماتك إنه بركيه شيخ إنك حنو سنيا أنت مسلم بكتب الله شافيه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله.